magaca Mise Socod iyo maleeshiyad hubeysan oo xirtay kontaroolkii weynaa ee magaalada Cadaado iyo wafdigii Liibaan Shuluq ay ku soo wajahnaa magaalada Cadaado oo jidgooyo loo sameeyay weerarna lagu ekeeyay. xogtan iyo xogo kale oo dheeri ayaan daawada halkan kugula wadaagi doonaa. ka hor muuqaalkan like saar oo soo follow garee bogeena, muuqaalkana share garee, aragtidaadana commentiga ee nagula wadaag. soo dhawow. wararka naga soo gaaraya magaalada Cadaado ayaa sheegaya in maleeshiyad hubeysan oo ka soo horjeeda imaanshaha wafdiga Liibaan Shuluq ay ku soo wajahan Cadaado ayaa waxa ay jidgooyo u sameeyeen isla markaa ay weerareen xubno u badan dhalinyaro tiktokerley ah kuwaasi oo hordhac u ahaa markaasi wafdiga Liibaan Shuluq ee ku soo wajahan magaalada Cadaado. xubnahaasi la weeraray ayaa waxa dhaawac soo gaaray in ka badan 4 qofood oo ay ku jirto gabadhan aad aragtaan muuqaalkeeda iyo sawiradeeda oo barta TikTok ku soo gasha magaca Mise Socod isla markaana ka ah caan ayaa waxay ka mid ahayd xubnihii wafdiga hordhaca ahaa ee la socday dhalinyaradaasi. waxaa soo gaaray dhaawaceeda waxaa loo qaaday Huurshe. warar kale waxay sheegayaan in xilligan la rajeynayo in dhaawaceeda la soo gaarsiiyo magaalada Dhuusamareeb kadibna la geeyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si xaaladeeda caafimaad halkaasi lagula tacaalo. allaha caafiya ayaynu leenahay. dhanka kale Cadaado waxaa xilligan ka taagan xaalad kacsanaana halkii kontarool oo ay Cadaado ahaydna kontaroolkii ugu weynaa ee magaaladaasi ayaa waxaa markaasi qabsaday isla markaana wax weeyaan hakad geliyay markaasi kontaroolkaasi xubno iyo ciidan maleeshiyad ah kuwaasi oo gabi ahaanba ka soo horjeeda imaanshaha wafdiga Liibaan Shuluq ee ku soo wajahnaa magaalada Cadaado. xaalka Cadaado ee xilligani waa mid kacsan. xubnihii wufuudda ahaa ee la rajeynayay in saacadaha soo aadan iyo gelinka dambe ee maanta inay si toos ah u soo gaaraan Cadaado ayaa hakad ku yimid isla markaa go'doon ku ah wadada isku xirta Huurshe iyo Cadaado. xog walba oo soo kororta ka daawo bartamaha TV oo ka dhiga weelkaaga koowaad.